soo dhawaada mar kale iyo madasha 60 madasha caawa waxaa marti noogu ah siyaasiga colonel Barre Aadan Shire oo loo yaqaano ama lagu naanayso Barre Hiiraale. Barre marka hore ku soo dhawow madasha 60. bismillaahir rahmaanir rahiim. madasha iyo dadka ku jiraba abiyo dumarba aad iyo aad baan idiin salaamayaa. insha allahu anagu waxaan joognaa muqdisho. wixii su-aalaha oo aad u baahan tihiin inaad iga weydiisaan waa iga weydiin kartaan. dadka aad iyo aad baan u salaamaya. aad baad umahadsantahay. aan gudagalno su-aalaheena Barre. su-aasha ugu horeysan ku weydiinaya waxa weeye waxaad tiri waxaan joogaa magaalada Muqdisho. Barre Hiiraale, Muqdisho xilligan maxaad ka qabanaysaa? muqdisho waxaan u imid markii horeba Kismaayo area waan joogay. Kismaayo aan rag isku haynay. dowladdan baa noogu timid wasiiro ka socda iyo IGAD iyo UN iyo muxuu ahaa urur goboleedka IGAD iyo barnaamijkaas waxaan ku imid xamar. waxaan loo sheegay in shir lagu qaban doono Kismaayo dib u heshiisiineed. waxaan u baahanahay inaad ka qayb gashaan adigoo aada xamar tagto. xamarna abaabulkiisa iyo shirka ka qaybgelidiisa aada xagga kasoo aado. barnaamijkaasaa horta annaga noo sheegay. saasaan ku imid xamar. shirkii isaga ahaa oo loo baahnaa oo dib u heshiisiinta ahaa oo jubbooyinka la rabay inay ka qayb gasho oo dhammaan lagu heshiisiiyo dadkaas sidii loogu talagalay uma dhicin mana qabsoomin. shir forsambar ah oo ay IGAD iyo niman Ethiopia iyo Kenya ka socda oo la yiraahdo Gabre iyo Maxamed Cabdi Afey waa shirkii waxay ka dhigeen Kismaayo. waxayna gacanta u geliyeen groupkaas Axmed Nureere. ayagaa maamulayay, ayagaa hayay, ayagaa cidday rabaan ugu yeeranayay. annagana nagama qayb gelin, naloogumana yeerin. barnaamijkii halkaas ahaa sidaasuu ku fashilmay. annagana cadaalad darro iyo xaq darro nalagu sameeyey. laguna dowladduna ay ugu tagtay ilaa heer madaxweyne Kismaayo. barnaamijkaas halkaasuu ku afjarmay. wuxuu ku afjarmay cadaalad darro. wuxuu ku afjarmay in aanan laga qayb gelin. wuxuu ku afjarmay in lasoo khiyaanay oo muqdisho khiyaanana lagu keenay. meeshii maalintii la dejiyey baana deganahay. barnaamijkayguna xagga dowladda waa maxbuus. waayahay, si fiican baan kuu fahmay. Barre Hiiraale, su-aasha kalan ku weydiinaya waxa weeye yaa lugooyada intaa lee kuu geystay, yaa ku soo khiyaameeyey, waayo cidda aad eeddaa dusha ka saaraysa? eeddaas waxaan dusha ka saarahayaa xukuumaddii uu hogaaminahayey cabdiweli sheekh axmed. wasiiradiisii 6 wasiir oo uu noo soo diray uu hogaaminahayey nin la yidhaahdo Goodax iyo IGAD oo iyadana ay ka socdeen Gabre nin la yidhaahdo iyo nin la yidhaahdo Maxamed Cabdi Afey. lugooyadaas iyo khiyaanadaas waxaa lagu sameeyey xukuumaddii cabdiweli iyo Gabre iyo ninka la yidhaahdo Maxamed Cabdi Afey oo Ethiopia iyo Kenya ka kala socda
oo ku qaraabanaya kuna dhibaataynaya dadka magaca la yiraahdo iyaga waayahay annaga kuwaasaa khiyaanada iyo dhibaatada lagu sameeyey waayahay xukuumaddii uu ra-iisul wasaaraha ka ahaa cabdiweli sheekh axmed meesha way ka baxday way maqan tahay way tagtay bare maxaad uga wareegaysaa inaad eedda dusha ka saartid madaxweynaha dowladda federaalka xasan sheekh oo isagu indhahaagoo shana shirkaa kismaayo intuu ku yeedhay oo muqdisho ku keenay isagu ka qayb galay oo shirkii kismaayo tegey shirkiina uu si wacan u dhacay isaga maxaad eeddaa ka odhanay wallahi aada iyo aad baad umahadsan tahay welihii fulinta baan kuu sheegay barnaamijkooda laakiin haddii lagu daro madaxweynahana madaxweynuhu oday buu ka yahay khiyaanada nagu dhacday iyo cadaalad darrada nagu dhacday asagaa aabbo u ah asagaa tegey meeshii shirkii asagaa furay isagaa gebagabeeyey isagaa u tegey oo axmed madoobe wax aan awoodiisana ahayn adduunkuna uu la yaabo u sheegay oo yii madaxweyne xisbiga aad tahay marka kala warwareegaye waxa weeyaan asaga ruuxiisaaba aabbo u ah dhibkana haysta waayahay xilliga iminka la joogo ma maxbuus baa tahay mise marti baa tahay wallahi aniga marti ma ihi waxa weeye nin lasoo khiyaanay oo xamar la keenay oo meel la dejiyey oo 6 bilood aan dib loogu soo noqon oo barnaamijkii uu ku jiray oo siyaasita ahaa laga xayiray oo dadkii ay wax isku hayeen iyo halgankii aan ku jiray khiyaano nooga soo qaaday oo halkaana keenay kadibna hawshii dadkii iyagii laysku hayay ay iska maamulanayaan iyaguna ay dawlad ugu noqdeen urur goboleedyo ugu noqdeen ku dhex jiraan oo annagu hadda waxa weeye waad ogtahay goboladaas juba xataa kuwa kani hadda maba xukumaanay waxaa xukumaa in la yidhaahdo gabriel iyo maxamed cabdi afey marka barnaamijkaasu halkaasuu taagan yahay annaga nalagama joojinayo nalagama tixgelinayo nalaguma qaybgelinayo dadkeeniina waa la dhex galay oo iyadoo hadda shir weyne uu uga socdo meesha la yidhaahdo garbahaarey inay inta diyaarada soo qaataan oo tuuladii meesha la yidhaahdo degmada doolow isugu geeyeen kadibna degmadii doolow etoobiya dadka loogu yeeray loogu indha guduudiyey la yiri ilaa taga diyaarada loo keenay la saaray barnaamij iyagoo aan raalli ku ahayn lagu geeyey kismaayo waxa weeyaan waxa socdaa waxaas weeye waayahay bare hilaale aawe ciidamadaadii wallahi ciidamadaydii aniga waxa weeye fariisinkoodii bay joogaan sabca ashraaf wayna ku fiican yihiin halkaasay ku sugan yihiin markii laga reebo khiyaanadii hore rag ku xarooday oo meel maxaabiis ku ahoo hubkii laga dhigay oo nimankan amisom baleeyahay amisom ma kala shaqaysaa halkaase kenya meelay degan tahay hubkii looga xareeyo oo maxaabiis ah oo xataa aan xuquuqdii maxaabiista la siinin raggaasoo halkaasu ku jiraa laakiin fariisinkii sabca ashraaf halkaasaa ciidamada xoogoodii joogaan waana ku fiican yihiin wararka qaar baa sheegaya bare hilaale in 70 ciidamadaadii kamid ahaa ay ku biireen jubbaland ciidamadeeda ciidamo kale oo ciidankaaga ka tirsanaa hase yeeshee aan kula hayb ahayn in iyaguna ay dooni ay ku baxsadeen oo ay sidaa ku tageen kuwo kalena dhinaca dhulka ay duseen marka ciidanka iminka aad ku og tahay sabca ashraaf waa ciidan teleg ciidanka horta tiradiisa in la sheego oo saxaafad laga sheego meesha kuma jirto laakiin ciidan dhul ku baxsaday iyo ciidan bad ku baxsaday iyo ciidan ka qayb galay jubbalanta muxuu ahay axmed madoobe kooxdiisa midna ma jirto weye waxaas propaganda weye
waxay kamid tahay qaybaha dagaalka ee wax jira ma aha ciidamadannadu laba rugood bay kala joogaan mid waa idiin sheegay oo waa ciidanka ciidan amisom la jooga oo hubkii laga xayeeyey fariisintii kale oo annaga saldhigga noo ahayd baana ciidankiisi xooggiisii jooga waa tahay colonel Barre horta sidaadaba ma Jubbaland haddii aan su-aasha ku weydiiyo Jubbaland ma aqoonsan tahay Jubbaland waxa weeye waa gobollada Gedo iyo Jubbada Dhexe iyo Jubbada Hoose Jubbaland saasaa la yidhaahdaa waan aqoonsanahay Jubbaland dhulkeedaan aqoonsanahay laakiin nidaamka hadda Axmed Madoobe iyo nimankaas ay kismaayo ku hayaan ma aqoonsanin mana aqoonsan doono marka ma waxaad diidan tahay Sheekh Axmed Madoobe shakhsiyan mise maamulka jira oo dhan Axmed Madoobe wuxuu ka mid yahay nidaamka meesha ka jira hadda oo nimankan iyagad ka socda ay meesha ku camcaminayaan uu asagu madax u yahay marka asaga iyo maamulkiisa midna annagu ma ogolin mana aqoonsanin mana aqoonsan doono sababtoo ah waxaan ku leenahay baanba jirinba waayahay Barre Hiiraale marka xaqiiqda laga hadlo geed gaaban iyo geed dheerba waxaad u fuushay inaad noqotid madaxweynaha Jubbaland iska daahanasho madaxweynaha waxaa inta badan ay dadku ku sheekaystaan in ciidankaagii haruurlaha lagu daray oo la jebiyey ama laga adkaaday marka laga soo tago dagaal innaba ma ka fikirtay inaad nabad wax ku raadisid oo dhinaca kalena ku eegtid ma adeer waxa weeye dadku horta in wax la iska sheego burbulaan ma ahan cadowgaadaa wax kaa sheegaya ehelkaadaa wax kaa sheegaya laakiin waxa lagaa sheegahayo ama dagaal weeye ama wax xaqiiqaa weeye annagu nabad waxaan ku bedelaynaa ma ay jirto hal sano iyo wax la jiraan waxaan deganaa baan ku yidhi 5 kilomitr Kismaayo waxaan u diidnay inaan ka dagaalano in dadkanagaan u turaynay sidaas awgeed nabad in wax lagu soo celiyo oo dadku isku fahmo weeye waxaan anagu rabnay annagu wax kale oo aan doonaynay ma jirto nabad inaan wax ka raadiyana waa midaas waxa tusaale ugu qaadan karto marka annagu nabadaan hadda wax ku doonaynaa nabad baan rabnaa dib u heshiisiin baan rabnaa dadkanaga Soomaaliyeed oo carradaas degan oo deegaanka in la isu keeno oo la wada hadalsiiyo baan rabnaa waxa iyagu ay wada leeyihiin oo ay samaysteen oo ama qoraal ha noqdo ama qofkii ha noqday iyo xildhibaanadii iyo wixii ka qayb galayay iyo nidaamkii waxa anagu aynu wada leenahay oo wada samaysanay waxa anigu waxaan doonayo nabad baan ku doonaynaa laakiin cadaalad darra meesha ku jirta ama dawladda ha noqoto ama urur goboleedka wakiilka ay u yihiin ninka la yiraahdo maxaa cabdi afay iyo gabriel waxaasaa diiday meeshii in cadaalad ka dhacdo oo dadkii isugu yimaado ayagaa dad gaara xambaarsan dad gaara iyo dadkii kale oo Soomaaliyeed oo deegaanka ahaana barnaamijkaas aan ka qayb gelin tiil cad oo gruubkaas Axmed Madoobe bay sameeyeen ayagaasaana barnaamijkaas hadda si xun u maamulaya waayahay Barrow marka ugu horeysa ma kala hadashay madaxweynaha inta imika aad ii sheegtay oo ma tiri ninkii tirada ka go'aysay aniga ahayd anigaad halkan ii keenteen inaan shirka ka qayb galo haatana waad iga tala baxdeen sidee u xujiraan foolka fool su-aasha ma isu weydiiseen madaxweynaha kafool baan isu aragnay oon uga wada hadalnay oo markii uu aadayay oo shirka uu furayay baan wada hadalnay waxaan u sheegay in aan barnaamijkaas maanta uu aadayo aan ka maqannahay oo groupkanagii dib u heshiisiinta in laga qaybgeliyo ay ka loo baahnaa ay ka maqan yihiin sidaas awgeed
waxaan kugula talinayaa inaadan barnaamijkaas hal qayb keliya una furin shirka una xirin oo taas cadaalad darro weeye shacabkii soomaaliyeed oo deegaankaas oo dhan barnaamijkaas kuma jiro marka waxa weeyaan nasiib darro dee madaxweynuhu si cadaan uu ugu gacansaydha arrintii hagaag dhegaystayaal halkaa weli aad nagala socotaan oo uu waraysigaasi inagala socdaa ama uu idinka soo gudbaya waa madasha 60 aynu kusii soconno ama sii wadano su-aalaheenii oo aawa uu marti inoogu ahaa siyaasiga weyn colonel bare aadan shire oo bare hiraale loo yaqaano su-aalaheenii haddii aan dib ugu noqono bare waxaad moodaa in adiga keligii un shaksi ahaan aad ka maqan tahay shirarka nabadeed ee ka socda magaalada Kismaayo dad badanoo ama beeshaada ha noqdaan ama kula mabda ah ayaa shirka u fadhiya oo nabadda soo dhaweeyay oo miiska wada hadallada fadhiya marka cidda aad tabaysid ee shirka ka maqan waayo ma shakhsiyan ma naftaada mise waa dad kuwa qaba fikirkaad qabtid oo meesha ka maqan ma adeer waxaa ka maqan fikirkayga ma ahan keliya waxa weeyaan dhammaan dadkii deegaankaas deganaa oo soomaaliyeed oo la rabay shirka inay ka qayb galaan way ka maqan yihiin gaar ahaan annagu beel ahaan waan ka maqannahay waad og tahay oo haddee dadka meeshii la geeyey ayagoo shir weyne uu uga socdo garbahaarey oo gobolkii la fadhiyo in inta diyaarad la qaatay laga soo qaaday meesha la yidhahdo doolow dad la soo ururiyey oo aan ahayn dadkii dadka matalayay marka waxa weeyaan waxa meesha ka socdaa waa dagaalkii annagana lagu hayay qayb kamida weeye mid dadkii uu u dhan yahay maaha waayahay haddiiba iminka aad nabad doonaysid colonel bare aadan shire bare hiraale oo aad nabad ku baaqaysid sidee u dhici karta haddaad maanta maxbuus ba ku tahay magaalada muqdisho oo aadan diyaarad raaci karayn oo aadan kismaayo tegi karayn oo aadan meel kale tegi karayn bal marka hore intaad nabad iyo shirba ka shaqayn naftaada sidee u barixi kartaa marka hore aniga naftayda sidaan u barxana waan aqaan waana barixi doonaa waxaana ka qayb geli doonaa oo waan abaabulnay oo noo qorshaysan shirka garbahaarey ka socda oo midnimo waan ka qayb geli doonaa haddii alla idmo marka annaga waxa weeyaan xayiraadaan idin sheegay waxa weeye waa midda halkan iyo Kismaayo igama xayira inaan gobolkii aado waa tahay dhinaca isbedelada magaalada Kismaayo oo kale gudaheeda waxa la sheegaa wararku sheegaan in nabad buuxda ay dadku haatan ku nool yihiin ama ku naaloonayaan Nicholas Kay oo ah ergeyga qaramada midoobay u jooga waddanka Soomaaliya oo dhawaan ka hadlayay magaalada Kismaayo gudaheedu waxa uu sheegay in Kismaayo ay tahay meel nabadeed oo haatan soo ifaysa wuxuu ku tilmaamay hogaamiyaha ama madaxweynaha Jubbaland inuu yahay madaxweyne ama hogaamiye daba waxa kale oo uu jibaaxay in dadka laga tiro badan yahay ee markaasi awood qaybsiga marka laga hadlayo aad loo soo dhaweeyay oo aad loo ixtiraamayo waxa iyaguna socdo bare hiraalow dhaqdhaqaaq ku saabsan in la sameeyo xubno baarlamaan waxaa la soo dooray ilaa iyo 15 degmo oo min 4 xubnood ah waxaa halkaasi ay noqonayaan 60 xubnood waxaa kaloo magaalada Kismaayo la siiyey 5 xubnood gudaheeda 10 xubnood madaxweynaha ayaa awood loo siiyey in uu isagu iskii u soo doorto waxaasoo dhan markii aad eegtid ood isha marisid ma ku muuqataa nabad iyo barwaaqo iyo cadaalad waxaasaad sheegaysa oo dhani waxaan anagu aqoonsanahay iyo waxaanu ka warqabno iyo waxaanu rabno ma ahan waa kuu sheegay waxaan ku yidhi waxa meesha ka socda waa dagaalkii nalagu hayay qayb kamida weeye marka waxa weeye waxa aad ka hadlayso waxay ahayd in dadku u dhan yahay oo dadku wada heshiiyo oo shir weyne dadku uu ku heshiiyo loo qabto oo ay dadku barnaamijkaas ka wada qayb galaan marka waxa hadda aad sheegayso cid dadka ka qayb galaya waa dadka iyagu ay diyaarsadeen Axmed Madoobe uu asagu diyaarsaday oo soo qaadanayo weeye laakiin wax dadkii deegaanka ahaa si xismiga loogu yeeray oo looga martigeliyey
oo ay u joogaan ama dhaqan ha noqoto ama siyaasade ma ay jirto ninkan jamcadda qur'aanka ka dhaxaysa wakiilka u ah ee soomaaliyana ninkaasu waa nin khaa'ina weeye khaa'in wuxuu ku raaxaysanahayaa dadka dilkiisa wuxuu ku raaxaysanahayaa dadka kala qaybintiisa wuxuu sheegahayaa wax dhibaato iyo dulmi dadkii lagu sameynay ayuu ku markhaati furayaa meesha kismaayo la yidhaahdo walabtiin waxaa ka dhacay dil laguma tilmaami karo waxbaa lagu dilay laguma tilmaami karee waxaa lagu tilmaami karaa xasuuq qismi ah in kismaayo ay ka dhacday oo rag iyo dumarba lagu laayay oo dadkii xuquuqdoodii iyo wixiisii lagu tuntay oo dhismayaashoodii iyo hantidoodii mid guurtiyey iyo midaan guurta ahayn ba lagala wareegay oo la qaatay oo aan dadkii deegaankaas ahaa ama siyaasiyiin ha noqdo ha noqdo madaxda u ahaa dadka meelaha degan deegaankaas aan lagana qaybgelin loona ogolayn inay tagaan waxaasuu ka shaqeeyey waxaasuu ka markhaati furay marka waxa weeye waa arrin cadaalad darro ah oo uu ku samaynayo wey wuuna og yahay waxaan kamid ahaa anigu rag u tegey xafiiskiisa ugu tegey u sheegay barnaamijkan dib u heshiisiinta oo naloo keenay waxaan u baahannahay si cadaalada oo rasmiya inay u dhacdo ee aan muxuu aha group keliya aadnaan gacan ku siin waxa weeyaan wixii aan anagu u sheegnayna wuu diiday groupkii gaarka ahaaduna arrintii kula shaqeeyey marka waxa weeyaan dhibaatada aabaheedba weeye ninkaas dhibaatooyinkan aad ka sheegaysid kismaayo ee kufsiga iyo dilalka iyo xasuuqa marka aad ku tilmaantay barrow haddii berri ka maalin lagu yimaado cadeymahooda ma haysa ma caddayn kartaa horta hello waa lahna weydiiya waayahay su-aal kale haddii aan ku weydiiyo colonel barre aadan shire barre hiiraale kenya la col baa tahay ethoopia la col baa tahay axmed madoobe la col baa tahay xasan sheikh waa adiga hadda ka cabanayay waxaasoo dhan marka la eego barre yaa saaxiib la tahay yaa kula jaala adeerow aniga waxaa ila jaala oon saaxiib la ahay ilaahayga weynaa oo waaxidka ahaa saaxiibkaygu warkaas isagaana insha allahu noo iminaya waxa aad sheegaysa oo ama ha noqoto ethoopia ama ha noqoto kenya ama ha noqoto nimanka urur goboleedka ay iyaga ruuxooda ku shaqaysanayaan waxa weeye waxa ay ku dhaqmahayaan waxaan anigu raalli ka noqon kara maaha waxaan anigu yeeli kara maaha wax dadka soomaaliyeed dan u ahna maaha ilaahayna iguma khasbo inaan anigu shisheeye dabadhilif u noqdo oo danihiisa fuliyo wax kasta iyo meel kasta oo aan u maro haddaan noolahay annagu xuquuqdanada iyo xorriyaddanada waan difaacaynaa waxa meesha ka socdaana waxa weeye gumaysi run ah weeye waxa weeye nimanka hadda aad sheegayso dhulkii way haystaan gobolka gado oo kale kasoo qaad qayb waxaa xukuma kenya qaybna waxaa xukuma ethoopia isuma tegi karaan isku siyaasad maaha qolo u gurmanaysa iyo qolo rabta iyo qolo xiriirala midna ma jirto marka waxa weeye ma waxaasan anigu raalli ka noqon karaa waayahay mise qof kasta oo soomaaliya uu maxalligu ka noqon karaa waxaas waa tahay barre hiiraale markay kuu noqoto cadowgaaga kenya iyo al-shabaab kuma ku oosakeeya shabaab iyo kenya anaga xabadii noogu dambeysay waxay ahayd xabadda kenya iyo dadka la socda marka ayadaan ka wada hadlaynaaye waxa weeye iyaduna sidaasay u dhacdee hadda shabaab iyo barnaamijkiisa kuma aan jirno waa tahay barre hiiraale haddii beeshaadu ay ku timaado ay kula hadasho ay ku tiraahdo halkaa naga fadhiiso barrow khaati baanu kaa taagannahay nabad baanu qaadanay jubbaland miiska wada hadallada annagaa tegayna iska naso maxaad odhan lahayd warbeeshayda hadda waa tan shirku uga socdo meesha la yihahda garbaharey ama dibad ha jiro ama gudaha jooge shirkii rasmiga ahaa oo beeshu ay iclaansatay oo ay isugu tagtay garbaharey buu ka jiraa garbaharey meelaha jooga aniguse hadda xamar ma joogo waxaa ku tashanaya soo beeshii maaha
وحوي وركاسي وورك مارك يسكر فيسه أنا waxaan u dagaalamayaa xuquuq keligay ama ahane xuquuqda dadka Soomaalida ah oo deegaanka ah oo beeshanadu ay ka mid tahay weeye waxaan u dagaalamayno aniga hadii ay dadkii aan u jeedo ama aan arko inay xor u yihiin xuquuqdooda ka hadli karaan uga qayb qaadan karaan u samaysan karaan waxa weeyaan anigu intaan u dagaalamayaba weeye ma ahan anigu hadda Jubbaland barnaamijkan Jubbaland waxa weeye haddaan gobolkii ugu weynaa gobolada oo galo la oran jiray hadduusan si cadaalad oo fiican aan loogu martigelin aan looga qaybgelin ayna uga shaqeyn maxaa ka soconaya su-aashu weeye macnaha halkaas waxaan ku ifaysa inaan dadku inuu isfahmo oo la heshiisiiyo ayna rabin urur goboleedka igad iyo nimanka wakiilada uga marka waxa weeye aniga ma ahan inaan anigu diidanahay anigu hadda madaxtinimo kale doonaye laakiin waxaan rabaa dadka naga xuquuqdii uu ku hayo inuu helo waya Barre Hiiraale marka la eego maamul goboleedka Puntland waxay taageero hiidii hooba siisay dhismaha Jubbaland bilicdeeda iyo dhaqaalaheeda adigu sidee u aragtaa Puntland miyay ka axatay mise dhib uma aragtid aragtidaadu waa sidee Puntland 24 sano oo la soo dhaafay nimankii aan Kismaayo isku haynay weeye oo nagula dagaalami jiray marka waxa weeyaan sidee u aragtaa ma ahane Puntland iyo nimankan isku mid bay ahaayeen ilaa waagii 24 sano waxaan nagula dagaalamaya iyaga ahaayeen siyaasadoodu waxay iska bedeleen male marka waxa weeyaan waxaan u arkaa inay yihiin dadka nala dagaalamaya oo cadowga noo ah oo annaga midnimada diidan oo nagu dhex jira oo lacagta ku bixinaya dadka kuwa biirqaatayaasha ka kaxaysanaya dagaalka nimanka nagula jirayba weeye ayagu Barre Hiiraale si aad la socotid waxa maamul goboleed laga sameeyaa gobolada dhexe ee Soomaaliya shirkaas wuxuu ka socdaa oo haatan ay wufuud joogaan degmada Cadaado ka Barre Hiiraale ahaan laga yaabaa shirka inaad ka qayb gashid oo aad wufuuda ka mid noqotid gobolada dhexe barnaamijkeeda anagu waxa weeye taageeraan u nahay dadkii taageeray oo abaabulay oo ku dhiirigeliyay dadka shacabka oo gobolada dhexe ku nool inay isu yimaadaan oo ayagooda ka tashadaan oo heshiiyaan markay heshiiyaan oo ayagu ay si fiican u heshiiyaan oo si fiican isu gacan marsiyaanna ay maamul ay u midaysan yihiin oo ayagu xaggooda ka yimaadeen inay samaystaan wixii aan ku abaabulnay oo aanu ku dhiirigelinay weeye insha allahu barnaamijkaasna si fiican buu u hirgalay gobolada dhexe dadka degan way isku tashadeen shirka ayagaa wada ayagaa dadka isu keenay dadku ayagaa isxilqaamay waxa weeyaan anigu haddii loogu martigeliyo waa gaar laakiin barnaamijkaas isaga ah taageero un moogiya hadda anigu waxaan toos ugu dhex jira ma aha wagaag dhegeystayaal weli waxaynu ku geli jirnaa waraysigii caawa uu noogu martida ahaa colonel Barre Aadan Shire oo Barre Hiiraale loo yaqaano oo jooga magaalada Muqdisho waxaan mar kale u mahad celinayaa xidhiidhiyaha madasha 60 Asadna Suudi oo isagu qayb libaax ka qaatay xidhiidhinta iyo isku xidhka madashan 60 waaye ka Barre ahaan oo kale marka la yiraahdo Barre wuxuu ka soo jeedaa Abudwaaq oo ka tirsan gobolada dhexe ama Dhuusan Bareeb hoos timaada oo deegaanka uu halka ku arooro waxaad moodaa inaad xoogaa aad ka leexanaysid in maamulka gobolada dhexe aad ka qayb gashid laakiin si aad u hanqal taagaysid Jubbaland in aad wax ka noqotid marka ka Barre ahaan ma dhinaca khayraadka iyo barwaaqadun baad ku rilaacayso eeganaysaa mise waxaad eeganaysaa meesha dantu ay beesha ugu jirto anigu waa ka soo jeedaa Abudwaaq dadka degan baan ka soo jeedaa
kismaayo iyo juba dadka deganna iyo dadkaas caawad waad sheegaysidna waa isku mid waa isku qolo labadoodaba isku si baan anigu u arkaa inay xuquuq yihiin marka waxa weeyaan anigu laakiin caawudqa iyo xagga taageera puntland iyo nimanka la yidhaahdo groupka axmed madoobe waxay yidhaahdeen puntland waa jubbalandna waa puntland cabdiweli iyo axmed madoobe yaa warkaas yiri annagana waxaana lagula yaabayaa marka in caawudqa colonel inagoo gabagabadii waraysigeena marayna bal marka hore aan hal su-aal si kooban aan kaaga weydiiyo shirka midnimo 2 waxyaabahaas leedahay ayaa kasoo bixi karaya shacabka ku dhegaysanaya maxaad kow ka oran lahayd ama aad u tilmaami lahayd waxaan ka oran lahaa idinkoo aada iyo aada u mahadsan aniga fariin baan rabaa dadkiina dabadda jira in aan u gudbiyo fariintaasi waxa weeye shirka midnimo ee geda ka socda sidii aan rabnay dadka dabadda jira ugama ay soo qaybgelin waxaan codsanayaa dadkiina dabadda jira in aada shirka gashaan oo taageero dhaqaale iyo taageero tegitaan oo aad tagtaan bare aadan shire bare hiraale ugu dambeyntii maxaad usoo jeedin lahayd dadka ku dhegaysanaya ee madashan 60 ku fadhiya ee waraysigaaga la socday maxaad kula dardaarmi lahayd waxaan usoo jeedinayaa oo aada iga gaarsiinaysaan fariinta ah shirka ka socda gedo foyskiisii hore ama wejigiisii hore wuu soo gabagaboobay wixii lagu khilaafsanaa oo ugu weynaa oo ahaa ugaasnimadana waa la gabagabeeyey waxaana ugaas noqday ugaas maxamed ugaas cumar ugaas xisi insha allahu labada wiig oo soo socotana waxaa qorshaysan wejigiisii labaad oo midnimo 2 in uu insha allahu furmi doono waxaana ka qayb gelayo oo isugu imaan doona oo lagu tixgelinaya dadka kasoo jeeda jubbaland dadka kasoo jeeda laga soo qaybgelinaya oo lagu martiqaadaya waxa kasoo bixi doonana kaan hordhici mayno laakiin markii dadkaasi isu yimaadaan oo ay tashadaan oo dhibaatada haysata isu sheegaan siday uga gudbi lahaayeenna ay isla fahmaan markaasuu soo bixi doonaa waxa mustaqbalkooda uu noqonayo haddii alla idmo laakiin waxaa idin sheegayaa in si fiican oo aada kooran u ah inuu dadka soomaaliyeed ay diyaar ugu yihiin arrintaas ugana soo horjeedaan kooxda dhibaatada ku samaynaysa marka waxa weeye anigu fariintaasaan dirayaa barnaamijkuna halkaas inuu inoogu xidhmo waan jeclaan lahaa hagaag dhegaystayaal intaasi ayaan kusoo koobayaa waraysigaasi dheeraa ee aan la yeeshay siyaasiga weyn colonel bare aadan shire bare hiraale oo jooga magaalada muqdisho aad iyo aad ayaan kugu mahadinayaa bare hiraale sida wanaagsan ee dulqaadka sawirka iyo weliba ixtiraamka mudan ee aad su-aalahan kuusoo bandhigay aada dhammaantoodba aada uga jawaabtay aad iyo aad baan mar kale kugu mahadinayaa madasha iyo dadka ku jira